الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي ومهد سبحانه وتعالى إلهي بكليجي مهد له إلهي قال نمعونك بدين السيام مهد له وتضوى الله يجي عنه ذلك لما شعب غريس ومالنا لو ذاك شرني حال ذلك يحل أدوك بقى مركب ورثة وحن تعسلين يا إن كان يقول لي اللي قلت وشرقري مقدسه هي إنك كلام فؤاد حسن عبد الله وإسلام لو قدر ذلك إنجليزك إلهي لبدو كان سبحانه وتعالى إلهك ورابيه كم كقدر نبع لبدو بدليه إلهي سبحانه وتعالى كان يقول كنا سمري من والد كودي نجح نقصي أنت واحد أنا هم بلياني إذا بدنا قلب كسيدا يكون أمان كذا عشان النورات على هاي وأنا حالة كل وجهين وحالة ذاك حقنا قالها لكن إن شاء الله تعالى وحي من دونته وقت لو سوق على الإيران دونه إذا كان حقوق الدلك سبحان الله لو سوق على الإيران دونه إن شاء الله تعالى وحمانتا إنه عصب لبا أهرم بانك هذينا مدوى حوي أنت أصلا أساسيات وحنا ديمقراطية ده سومالنا حير دورشو أو لو جلية دورشو كانوا قال لي أو لو مرمي ما أنت إنه هريس حير كوريسي لو مرمي وحنا حير كي ورا توسكا أو ده إنه كان تبع إنه دول خلنا سجلوا ما أنت نوح تاجن حير كلا عليها حير 14 2000 ولو سمي سي أي حرّه أي وجود دلالان إن الجوال كستوح كهلان أيها لو قد الشروط يدها كابقولك 20 وهش متجاري كان أنا متشرو لكن واحد الدنيا يسيو حسب ونقضه حسبي أي ككوبي يدك وجرها سو ما لنا نحن قبل 2011 كي أيها السمية حور لطاطابتي وحب قولي ليلة أيها الوصدر لكن السيوانك واحد أي شيء لكن ما كان دولة شوقي إن 2000 في دور شيء وقال لي ورلا على استعمالك 2014 كي ما أنت لو عرفتان كيف على أكتيفيت كذي ولبا لبض القلوة في أوسين وحنا عادة تذكر مركلة ترتميه وإن قالوا وحيد لها وإن قرونك لسماه إنه وحلين لكن ذاتك ترتميه وإن شرعي أي مديسين يسكو أقوليهين إن لو ترتمه شرعي قولوا ديدنتي قولنا وضطها الشرعي معها بارش له اسمه له شرعي عن راسنا يعني شرعي معها أنا طبعا كل شغلان عبدناي حسب عيون كل شقيني وإحنا كل شقيني دور شو وقت يدعو بدحويلها هي حسب جيسة ونسلسه ما كاني ولا نور نارتين يعني دياريين وحنا كلنا حسب وضني 4 وحنا كل شيء إن حير كاس إنت على سودين لو عليا قطبك 2000 لو عليا أنا وأنا كشقينا إن مدحون مركع أنا ما يريسان وسيس صحيح ساتم كلا قادم هبين كده ما وحنا شرني محمود حاشي كاه وركاه وهذه أتسنا أنت وكم مسح فرنا هذه بروهم بليانيها waxaan ku heshiinay markaa in qodobkaasi si doorasho nagu dhacdo aan meesha ka qaadnayo ka la isla ogol yahay aan sameeyna fiimay dhicin ka dadaalkii ku jira ayaa la dadajiyay labadii golo duuduub ay ku doobeen waxaan sheegay reer awdal arrintan idinka inoo gaara maaha madaxda reer awdal ka soo waxaan leenahay ha u taswiirina adduunka iyo reer awdal إنه أرنتني كليين وتهاي
dalkoo dhan bay arrinta dan u ahayn qodobka boqoliidu adduunkana kama dhacdo adduunka codka guud baa la tiriya laakiin waxaa loogu daray 2000kii si uu xusbigu aanu noqon xusbi gobol ka soo jeeda ama reer leeyahay uu dadaalo inuu meel kasta ka helo laakiin hadda waxaa muuqataa in dad ka danaysanayaan dad wax danaysanaya ma marka qodobka waxaan jecelahay inaan insha allahu tacaala aanu consensus ka gaadhno oo ka shaqeynayna insha allahu tacaala saamiyiinta oo dhan inaan la shirnaan doona insha allahu tacaala markaa dadka reer Soomaaliya waxaa leeyihin way noo soo afyaraatay tafaaruqeyni ballaadhna uu soo koobay halkaasuu taagan yahay isdejiya khayr baan noqonaysaa insha allahu tacaala waanu ka shaqeynaynaa kulmiye dowlad madaxweyne qalbi saliim bay la taagan yihiin maxamuud xaashi qalbi fiican baanu kala kulanay saamiin kale waana kulmi doonaa insha allahu tacaala arrintaa waa dhammayn doonaa insha allah taasaan leeyahay waxaa intaa inoo raacaa aan doonaya ka hadalno horta waa aragtaan xasan sheekh behaviorkiisa dhaqankiisa waa aragtaan inaan nin aan yani madaxweyne sharafteedii labiskiisii gaadhkiisii fiirashadiisa waad arkaysaa ilaa intii aynu heshiiskaa galnay innaga iyo Etoobiya maradu bustahay waa waasha hataa ma feeranayo garhka ma hagaajisanayo mana aha nin tuulo xukumi kara absolute aan xukumi kara dhaqanna uma lehe inay tuulo xukumaan haddana waxay ku darsadeenba inay dadkii reer Somaliland dilaan waxaa leeyahay marka horeysa dadka reer Somaliland meesha u tagay shaqadoon yaana idinku dhicin sidii gaziira dhinankii dadkeenii gaziira lagu xaqoonsay si dhaqso ah uga soo baxbale uga soo baxa dalkiina hooyo kaalaya dadkaas dad martiye maaha dad yaqaan valueska maganta iyo ehelka iyo xididka iyo dhaqanka ma yaqaanaan ka kaalaya maaleen dowladda waxaa leenahay dadkii boosasa ka qabtay sharcigu ka yaalay madaxweynaha maalinta waan kala hadalnay in 3 bilood cafisa way ka faa'iideystaan sameeya waxaa leenahay 3 bilood ku dhaqsada sidoo madaxweynuhu sheegay wixii wasaaradda wala wasiiran ka ansixinaya ka bacda baarlamaanka waxaan ka codsanaa inay degdeg khamiisa soo socota ayna la dhaafin waxaa leeyahay Soomaaliland dadka marka hore cagabadnaanteena ayayna gaarsiin dad ayna wax isku deerisna xitaa nahay maaha deerisna xitaa nahay magaca Soomaaliya baa isku keenay magaciisa way baabiyeen way xumeeyeen magaca dahab buu ahaa adduunka Sacuudiga Arabiya meel kastaba nin qab weyn ninka Soomaaliya inaga ahayd tusaale Soomaaliya maanta uu qurmay Turkiga tigisa uu qurmay Sacuudiga tigisa uu qurmay war Soomaaliya dhaqanaytan ma hebeli ma waxa leenahay dadkaas ilaahay khayr siiyo meesha ilaahay nabad ku siiyo inuu iska soo noqda dalkeena waan haysanina dalka Soomaaliland first ma leenahay Soomaaliland tigdab danta reer Soomaaliland maanta eegina waxba inaga imka Soomaali sida carabtu ay dawladda kale yihiin shan dawladood hadda qof Soomaaliland ilaaha siiyo Soomaali laakiin uu teena wax kasta ka horeysiinayna waxaan leenahay istajiya dadkeena iskaga kaalaya kuwaasna waxa weeye waxaan leenahay maanta Soomaali waxay u baahan tahay nolol qofka Soomaali taasoo Pakistan baa ku dilay baalay ninka reer Soomaaliland Ingiriiska dadkeen saas u daadsan yahay mangafa wada haysto lacag dadka reer qaadaya nolol bay u baahan yihiin uma baahna in Soomaali isku quuqiyo magaca Xasan Sheekh waxaan leeyahay waar dhulka leedahay waan xukuumada Soomaaliya war hagaaji maga taagaaji sida baa oran kartaa Soomaaliland waxaan doonayaa wax la yeesho laakiin adigu taadi aan wadin Ethiopia du baaysa 8 kun oo Ethiopia degan ee maanta joogay Soomaaliya albaabka kugu garaaci karaan meesha madaxtooyada Soomaaliya ku sheegaysa walaal kugu iman karaya adoon awoodeed lahayn dadkeedii haysan midnimadeedii haysan ya oo xalana tii kareen ila lagu baaro aan gali kareen ayaad Soomaaliland oo abkii aqoonin oo xooleyna wada daaqin oo inuu daris ahayn oo dhaqankooda aqoonin ayaad leedahay waan xukumayaa hawadeeda iyo dhulkeeda waxaan leeyahay la kala xishoodo Soomaali uma baahna buuq iyo la isku diro Soomaali wax nolol buu u baahan Soomaali u baahan
soomaali maanta shantii soomaaliyeed tiina u liidata jabuuti waad aragtay nfd waad aragtay gobolkii soomaaliga waad aragtay annaga waad aragtaa wartaada u liidata afad ku hadashid maanta ma jirto waa kaa ninkii ruuta madaxweyne ruuta muxuu yihi waa failed state we were failed state haddana waanu ka talinaa insha allahu tacaala in aanu anagu idin hagaajino bottom up approach idiin samayno halkan shir idinku qabano aanu idin dhisnaan dooninaa oo mushkiladiinu ay noqoto mushkilad soomaaliyeed gacanta ku haysee aanan ajnabi gacanta ku hayn taasaanu ka shaqeynana markaan isku soo ducayno aynu wanaageena iyo ka shaqeyna qabsigeena xumaanta iyo cadaawadda laga joojiyo Soomaaliya dhexdeeda. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.